Ma ku faantaa adiga? Haa, waad ku faantaa. Waan ogahay. Waxaad weliba dhahdaa. Isaga ma hal eray i dhihi kara? Waxaan saarayaa blog. Gabdhaheena Soomaaliyeed, waan ogahay dabcigiina iyo dhaqankiina intaba. Blogta wax fiican ayaad u malaysaan, balse ogaada ma ahan wax u fiican blogta. Haa, aniga xitaa waan saari jiray blog. Markii uu buuqna dhex maro, muddo kadib waan ka qaadi jiray, dib ayaana u heshiin jirnay. Wuxuuna igu dhihi jiray, sabab maxaad sidaan iigu galaysaa? Aniga hal jawaab ma siin jirin. Isaga ayaa i raali gelin jiray. Maalin maalmaha ka mid ah, buuq yar ayaana dhex maray. Anigana waxaan go'aansaday inaan blog saaro. Abidkaygana aanan ka qaadin blogtaas. Waan saaray. Meel walba oo igala soo xiriirayo ayaan blogta saaray. Xitaa lambarkayga hormuudka. Muddo markii aan ka aamusnaa ayaa ka qaaday. WhatsApp-ka 2 beri blogta waa ay ka qaadnayd. Balse wax fariina iima soo dirin. Aniga ayaa bilaabay inaan raadiyo Facebook-giisa. Waan u diray fariin. Ma uusan ii soo jawaabin. Aniga waan isku dayi lahaa inaan raadiyo, balse ma ahayn qof dalka ila jooga. Wuxuu ku noolaa waddamada shisheeye. Haweenada ka mid ah ayaa WhatsApp-kiisii laygu soo diray fariin. Waan farxay, waan wacay. Waxaana iga qabtay saaxiibkiisii. Wuxuuna ii sheegay qofka aan raadinayo dunidan aan hadeertan ku noolahay inuusan ila saarnayn. Aniga waan qaraacmay, waan shalaayay. Si aad iyo aad ah ayaan u ooyay weliba. Laakiin xilligaas maxaan ka gaaraa? Saaxiibkiisii wuxuu ii sheegay inuu fariin ii reebay oo weliba cod ah. Inta uusan geeriyoonin ka hor, muxuu igu dhahay mataqaanaa? Sidaan hadda soo socota ayuu yiri. waan ku salaamay suldaamadii aan jeclaayay. Salaan kadib waan la socdaa sababtaad blogga ii saartay. Waxaan kaloo ogahay maalin inaad adiga blogga iga qaadaysid, laakiin adiga ma la socotaa aniga xanuunka aan marayo. Silaac, rafaad, xitaa waxaan gaaray heer nolosheeda aan naco. waan ogahay inay dabeecadaada tahay dadka inaad blogga saarto, laakiin waxaa laga yaabaa maalinta aad blogga iga qaado dunidan quruxda badan leh inaanan ku noolayn. taloo maqnaanshahayga maalintaas ma ka nixi doontaa mise waad ku farxi doontaa? middaas aniga xitaa ma sheegi karo. keliya waxaan ogahay inaad naxariis ii lahayd. aniga waan kuu soo dhawaaday, laakiin kala fogaanshahiina maahan mid dhammaanaya. sidoo kale sheekadiina jecelna maahan mid dhammaystiran. weli waa qabyo. qasab maahan waxa samada dowliya waxa dhulka jooga inay kulmaan. laakiin ogow jecelka dhabka ah waa jecel aan lahayn kala fogaasho. waxaa kaloo ogaataa qisadiina jecelka inay qabyo noqotay, laakiin dardaarankayga ugu dambeeyay adiga ayaan kula dardaarmayaa dhegeyso. weligaaga isku dayin qof inaad blog saarto. qofku jecel iska daaya, xitaa cadowgaaga blog ha saarin. waa iga codsi. blog waa wax ugu xun ee nolosha. waxaa kaloo ogaataa blogga inaysan noqonin jawaab, balse waxay ku noqotaa shalaay. shalaygaas oo aad shalaysa inta cumrigaaga ka dhiman. wuxuu i dhahay maqnaanshahayga ma ku farxi doontaa mise waad ku nixi doontaa? maya, kumaanan farxin aniga maqnaanshahiisa. waan u xiisay, weliba aad u weyn ayaan ugu xiisay. waa run, kala fogaanshahayna muusan ahayn mid dhammaanayo. sheekadaynii jecelna waxay noqotay qabyo. waa run, sheekadaynii jecel ma ahan mid dhammaystiran. bal fiiri, maanta aniga maxaa igu dhacay? maxaan la shalaynayaa? waa blog dartiisa. hal blog aan saaray dartiisa dabcigayga ayaa noqotay inaan blog saaro. bal ka waran, bal i eeg maanta aniga sideen ahay. yaan raaligeliyaa? waxaan rabaa raaligelayn inaan bixiyo. aaway qofka aniga aan raaligelayn lahaa? yaa iga aqbalaya raaligelaynteeda maanta? maalin ayaan fursad haystay. fursadaas aan xafiis ku dalban karo oo aan ku dhihi karo iga raali noqo. iyadoo sidaas ay tahay
waxaan saaray baloog maanan weydiisan raaligelin weligay hal mar xitaa maanan dhihin iga raali noqo bal ka waran midda maanta i haysata oo kale idhegaysa abaayo adiga ayaan kula hadlayaa maya weligaa ha ku jeesjeesin qof bini'aadana misena adiga ku jecel naftiisa weliba kaa jecel waa run wuu i jeclaa isaga baloog kasta si kasta aan aniga u saaro muusan iga maarmin wuxuu sugayay keliya ilaa aan aniga baloogta kaga qaadayo maxaa yeelay isaga wuxuu ahaa ruux wax jecelna marnaba ma quusto idhegaysa adiga ayaan kula hadlayaa waan ku baryayaa ha noqonin khayr mas-uul weliba sideedoo kale ahana ku degdegin shayga la leeyahay baloogta inta aad baloog saari lahayd ka aamus fariin weliba uu kuu soo dira ha u jawaabin haa laakiin ha saarin baloog waa iga dardaaran waana dardaarankayga ugu dambeeyey ha saarin baloog ka fogow baloogta